sheegay bo saslay dhaawacay ilaa hadda waxaan ku fikiri jiray yaa ku dhaawacay iyo ku dili sabab meeshii lagu beegsaday marka waa seexan waay marmar xitaa waxaa dhici jirtay aan kusoo kaco hay dilina wuxuu igu jawaabi jiray مجعلين maantana dhibkaan ka hadlo warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baahisay barnaamijkii la sugayay barnaamijkaas oo laga diyaariyay shabakad al-shabaab u qaabilsan dilalka Muqdisho oo xubno ka tirsan la qabtay inkastoo ay jirto qayb labaad xalqada koowaad oo ninka ugu badan ee ka soo muuqday uu yahay Maxamed Xaaji Axmed horjoogaha shabakada dilalka qorshaysan waxaa lagu soo bandhigay xogo kala duwan macluumaadka ayaa ku saabsan howlgallada khaarijinta ee shabakada uu horjoogaha u yahay Axmed magaalooyin ay ka mid yihiin Marka iyo Muqdisho iyadoo Maxamed Xaaji Axmed magaciisa afgarashadu ay ka mid yihiin Daakir Ilkaase Cadaawe iyo Xudayfa falalka Axmed Ilkaase oo ku lug lahaa ayaa lagu beegsaday mas'uuliyiin saraakiil ciidan iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan shakhsiyaad waqti xaadirkan caan ah haddaba waxa soo dhan waxaan u soo xusnay oo aan ugu dan leenahay ayaa waxa ay tahay ama warbixinteenan ay daaran tahay kulay waxa laga yaabaa inaad hore u maqashay wariyihii dilaaga noqday ama dilaagii wariyaha Xasan Xanafi balse maanta waxa soo dhan way ka duwan tahay oo waxa weeyaan macallinkii dilaaga noqday haddaba waa kuma Maxamed Xaaji Axmed xagee ayuu ku dhashay waxbarashadiisa hoose dhexe xagee ayuu ku soo qaatay goormee ayuu ku biiray ururka al-shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo ku magac dheer Ilkaase waxa uu ku dhashay Buulamareer gobolka Shabeellada Hoose oo waxa uu ku biiray xarakada al-shabaab isagoo daayar ah waxa la sheegaa in macalinkiisii diinta ama dugsigii Quraanka u dhigayay in uu gacan saar la lahaa ururka al-shabaab sidaasna uu markii dambe ugu biiray ururka Maxamed Ilkaase 2008 ayuu ka qalin jibiyay dugsiga hoose dhexe ee magaalada Marko isagoo dugsigiisii sare ka bilaabay isla magaalada Marko sanadkii markii uu ahaa 2009 waxa uu ka qalin jibiyay dugsiga sare sanadkii 2011 kadib markii uu dhameeyay dugsigiisa sare waxa uu soo bedeshay magaalada Muqdisho halkaas oo uu ka galay jaamacadiisii ugu horeysay 2012 ilaa 2016 waxa uu bartay cilmiga loo yaqaan Public Administration jaamacadii labaadna waxa uu masterta ka diyaariyay jaamacadda Muqdisho University horjoogi Maxamed Ilkaase 2017 wuxuu shahaado diblooma ah ka qaatay macahadka luqadaha Ingiriiska lagu barto ee ku yaala caasimadda Soomaaliya halkaas oo uu markii dambe uu ka noqday macallin markii uu macahadka uu ka shaqeynayay muddo 2 sano ah waliba gaar ahaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ayaa waxa uu iskaga tagay bishii saddexaad ee sanadkii tagay 2019 waxa ayna ahayd 2 bilood ka hor inta uusan u gacan gelin ciidanka laamaha ammaanka ee Soomaaliya hadda Maxamed Xaaji Axmed Ilkaase da'diisu waa 27 sano jir haddaba aan halka ugu nimaano taariikhda Maxamed Ilkaase balse aan ciwaanka warbixinteenan aan ugu dhignay macallinkii dilaaga noqday Maxamed Ilkaase isku daygii dilkiisii ugu horeeyay waxa uu u geystay YouTuber-ka caanka ah ee Asad Xaajiyo sanadku markii uu ahaa 27 Agost 2012 Asad oo hadda ku nool wadanka Malaysia caasimadda Kuala Lumpur haddaba yaa ka dambeeyay inuu Asad Xaajiyo naafo laga dhigo yaase ku lug lahaa dilkiisa kuma ayuu ahaa shakhsigii naafada ka dhigay muxuuse ku dilay imise ayayse ahaayeen dadkii dhibka u geystay Asad Xaajiyo isku day caankee ayuuse ahaa ma mid dil mise mid la doonayay in laga dhigo Asad Xaajiyo naafo maxaan xabaday ku nacay xanuunkaaga nacbay xayaat intaad jartiyo xubnaad naafeysay baa xisaab iyo tir lahayn ninkii ku fikiray xumaa maxaan xabaday ku nacay Asad Xaajiyo oo ay ku dhacday 6 xabadood dhammaan xabadahaas ayaa lagaga beegsaday qaarka sare ee jirkiisa dhamaantoodna waa ay ka wada baxeen walow mid ka mid ah xabadahaas ay dhabarka ugu dhacday taas oo markii dambe sababtay inuu Asad qaarka hoose uu naafo ka noqdo oo uu fuulo gaariga loogu talagalay dadka curyaamiinta Ilkaase oo garanaya gacan ku dhiiglaha falkaas sameeyay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay saaxiibo dhow ay ahaayeen Asad Xaajiyo Asad markii dadka masuukaan yaqaanaan qaarkood si kale saaxiib waa una footada iyo wixii marka ma ku darsamin baan hadhow si far ii soo gelin banaankan ka istaagay Asad Xaajiyo oo isagana hadlay ayaa beeniyay in ay saaxiibo dhow ahaayeen macallinkii dilaaga noqday Ilkaase waxaan saaxiibeen ninkan iyo Asad saaxiib ma ahayn waxa marxaati ah in Asad ninkan saaxiib ahayn waxa marxaati ah dadka deegaanka ah ee meesha la degnaa ama dadka asxaabteena ay loo dhaba
dadkaasaa fahmi karo ninkaan asad inay waxba ka dhexeeynin. dhagarqabe maxamed ilkacase oo sawirkii kurta ahaa ee shahaadadiisa dugsiga sare uu gacantiisa kaga qaaday asad xaajiyow ayaa joogay meel u dhow goobta uu shirqoolka asad xaajiyow ka dhacay. أنا شخصيا أقان وها يعني من في عنو وها دولة مشاكلين وحبا موسنهن إيش ستيشن روز كجوجي فوتوس روز كجوجي فمن هنا يعني وادت أطلعوا يقانا فوتو يسوي لك كاس حلو كاس قبل كنا بولا يقانا سوير كدوسي سر شهادة حتى يسوي يقانا لما كان جوجي أو ماشي يسوي ستيشن روز تيسا من شيء بيمل الله كتر صرت دائرات أو محاضرين بحلو قبل جري أنا حق التاجن أو حركة أنا أو مركز دمن دونه أو بود ولا ده دونه أمش تاجنا أسد تلفون متوقف توحده ورانا ما كوا عرّن جبي وده والله فولي واحد شهابتي وحي إيه كم بود ولا حموس وبسنا نكوا قبلها عبارة مركب إذا أنا نوصل أرد مش كأماني نكيو جيفا أرجعني هنا كان بس ولا حريصنا بس نكيا سوتني حد عسان وده ينكو ده تلفون سوق هذا تلفون كسوا كذا أنا مش تاجن وده يعني ما كوسو قلنا وحو قبنا وشايفه أسلي دعوة إلى هذا وحنا كفكر جري يأخذ دعوة يأخذ دليل صوب ماشي لو بيحصل مركوك سيحة وين مرة حتى هذه جرتي أنا كسوكا هي دلنا مركا وحيا وحنون بدن إيوهن جرتي لكن هذا وحرجنا إن أنك بوكسن دونا إن شاء الله كل المسيح ذكره. أسد حاجيو walaalkiisa Cabdilaahi Xaajiyow waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya uu ka codsaday in si wanaagsan loo baaro Maxamed Ilkacase ama macallinkii dilaaga noqday waxa uu sheegay Cabdilaahi in Ilkacase waxyaabo badan uu og yahay uu qarinayo doonayana in laga soo saaro waxyaabaha uu qarinayo. hadalkiisa aad iyo aad u dhageystay waxyaabaha uu sheegay dhan waxa ka jira wax yar qolkiiba 20 sax ka marka 80 kale ninkaas si sax ah uma hadlin. inkastoo ururka al-shabaab aysan xilligaa sheegan isku dayga la doonayay in lagu dilo Asad Xaajiyow oo ka shaqeynayay goob sawirada lagu qaado ayaanan ilaa iyo hadda aan weli aqoonin sababta uu bartilmaameedka u noqday isaga. sidaan yeelay waxaan dhihi lahaa xil baan noqon lahaa xigaalkan jeclaa maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay maxaad ii xabaashay maxaad ii xujeysay adaa dad ii xigee maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay xigaal baan ku ahaa maxaad ii xasiday xidigaan rabay maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay